howlgalka military ee Ruushku ka wado dalka Ukraine ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro nidaamka adduunka ee uu Mareykanku gacanta ku hayo sida uu sheegay wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov. Washington waxay raadinaysaa sarreyn iyada oo soo rogtay sharciyo hal dhinaclayaal ah iyadoo ku xadgudbaysa qawaaniinta caalamiga ah ayuu ku andacooday mar uu wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Ruushka waraysi siinayay telefishinka Ruushka. waxa uu tixraacay isku dayga Mareykanku uu ku doonayay in uu ku soo rogo waxa loogu yeero sharciga saameynaya nidaamka caalamiga ah kaas oo iska caabin xoogan sida muuqata kala kulmay quwadaha aan la loodi karin ee Moscow iyo Beijing. howlgalkeena military ee gaarka ah waxaa loola jeedaa in aan ku joojino isballaarinta aan xishoodka lahayn ee NATO iyo jihaynta aan xishoodka lahayn ee ku wajahan adduunka buuxa ee Mareykanka iyo saaxiibadiisa reer galbeedka ee masraxa adduunka, ayuu wasiirka u sheegay hilinka Russia 24 isagoo xitaa saaxiibada galbeedka ku tilmaamay dad uu Mareykanku iska yeeshay oo aan lahayn mabaadi iyo mowqifyo gaar ah. xoog ku qabsigani waxa uu ku dhisan yahay ku xadgudbi weyn oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo xeerarka qaarkood, ayuu mar kale hadalkiisa ku daray wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Ruushka. Lavrov ayaa sidoo kale furka ku xooray madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell kadib markii uu dhowaan u muuqday mid dhiirigelinaya dagaal kale oo ka dhacay Ukraine. diblomaasiga ugu sarreeya ururka midowga Yurub ayaa sheegay in dagaal looga guuleysan karo goobta dagaalka isagoo ku dhawaaqay gargaar military oo dheeraad ah oo uu siinayo Kiev. Lavrov ayaa hadalkaasi ku tilmaamay wax laga xumaado marka madaxa diblomaasiyadeed uu yiraahdo khilaafka waxaa lagu xallin karaa oo kaliya tallaabo military. hagaag wuu qalday ama wuxuu hadlay isagoon ka fikirin, isagoo ku hadlaya hadal aanay cidna weydiisan inuu yiraahdo, laakiin waa hadal aad looga xumaado, ayuu sii raaciyay wasiirka amuuraha dibadda ee wadanka Ruushka. Moscow mawjadaha kala duwan ee dunida darafyadeeda uga imaanaya waa ay la socotaa, balse dhaga adeega Putin iyo nidaamkiisa hogaamineed ayaa sii muujinaya siday uga go'an tahay inaysan marna u dhagan nuglaanin fariimaha ka imaanaya dunida dacaladeeda.